asxaabay barnaamijkan hore idinku yiri waan bilaabayaa wuxuu leeyahay laba qaybood qaybtiisa koobaad wuxuu ka sheekeynayaa haweeno dunida waxa jira haweeno badan oo meel walba ku kala nool oo adag sidoo kalena waxa jira haweeno aan hamigoodiyo heer gaadhin waxyaabo badan ku dhacay marka maanta waxaan ka sheekeynaynaa haweenadaas waxaan tusaale ka soo qaadanaynaa haweeno kale oo adag runtii haweeno waxa jira dunida adagoo noqon kara tusaalooyin markaad eegtaan dhinaca dhulkeena iyo Afrika runtii badana intii heer gaadhay soo muuqata way yar tahay taasna waxa sababay bulshada in ku dhex korayno bulshada family-ga inantu inta yar tahay waxa la leeyahay adigu waxa tay guurjoog haddii aad wax baratay iyo haddii aanad waxba baranba laakiin runtu taas maaha waxa jirta markaan eegno dhinaca iyo bulshada waxa la leeyahay inantu waa guurjoog kaalay waxa ay qabo maaha inay inantu shaqo iyo lagu hawliyo waxyaabo kale inay family-geeda iyo reerkeeda iyo waxaas inay caawiso horta way fiican tahay dee waayo qoyskan ka dhalatay inaad caawisid xaq buu kugu leeyahay laakiin maaha in laga dhigo inantii heer malhid waxaad ku dambeynaysaa guur oo kaliyaata oo inay taasi ku ekaato inan waa hooyo waa walaal waa habaryar waa xaas wax walba way noqotaa marka inanta badana dhulkeena iyo Afrika badana inantu way cadaadsantahay runtii intii heer gaadhay waxbarashadeeda reerkeeda family-geeda bulshada ka soo dhex baxday dalkeeda sidoo kale waxay ka baahan yihiin amba wixii ay laga rabay inta fulisay way yar tahay marka maanta barnaamijkeena maanta waxaan eegaynaa bal dumaro amba haweeno hamni gaadhay heer gaadhay oo dalkoodiyo dadkoodiyo anfaceen naftoodana is anfacay waxaan idin leeyahay la socda subscribe saara channelkan waa channel cusub ku soo biira family lana soo noqda aad bad mahadsantiin maanta waxaan jeclaystay inaan soo hadal qaadno haweenad adag oo tusaale laga dhigi karo oo taasoo ay anfacday dadkeediyo dalkeedaba talow waa ay haweenadaas haweenadaas waa adna aadan runtii haween oo dhan bay tusaale u noqon kartaa markaan soo hadal qaadno wax qabadkeeda ee dalkeeda u qabatay My name is Edna Adan Ismail. I'm someone who is from Somaliland, and I had the privilege and the good fortune to have been born into a family who allowed me to learn to read and write. My father, who is known as the father of healthcare in Somaliland, he taught me compassion. He taught me generosity. He taught me the value of looking after the sick. Some of his favorite expressions were, if you cannot do it with your heart, your hands will never learn to do it. I always wanted to build a hospital. The kind of hospital I wanted to build was going to be a maternity hospital. So what I decided to do was I was going to train 30 midwives. That was the original plan. I now have 300. And my aim is to do 1,000. A fistula surgery is always very touching. And each one has its own drama and its own pain. The first case we had this morning was little Hamda. She went into labor for 2 days. The baby wasn't coming out. They brought her to a village, by which time the head of the baby came out. They put her on a truck, the 16-year-old kid, 2 days on the road with a head sticking between your legs. Somehow she survives. And when the baby comes out, they realized
that she's leaking urine and feces. She was operated today by Dr. Rory Romancy. She looks like she's going to be one of the successful ones. Fistula is something that should not happen to any woman. If there's a good midwife who's trained, who knows how to manage a pregnancy and prepare for a delivery, no woman sustains a fistula. Because too many African women are dying because they're being delivered by a neighbor, by a grandmother who means well, but who doesn't know how to do it. I want to train 1,000 midwives, community midwives, for the Horn of Africa. And that will prove to the world that the training of midwives does give a chance of survival to women. daawadayaal saan videogan aan ku wada daawanay wax qabadkeedu maaha in yar wax badan ay runtii tartay wax badan ay dalkeeda qabatay wax badan ay nafteeda anfacday runtii waa tusaalo haweeneed waa haween adag waxaan idin leeyahay qof walba amba guri walba waxa ku nool 2 gabdhood 3 gabdhood iyo ka badanba marka walaasha taad wax isku tihiin inaad dhirigelisid sida ay wax barato in heer gaadho in loo sheego bulshaduna ay garab istaagaan haween ayaan anigu kula talin lahaa amba ande taladayda markaan dhiibto idinkuna raygiina ii soo qora comment-ka videoga saas ku eegyahay waynooyo videoga dambe waxaan idin leeyahay is arag wanaagsan oo kulan dambe wanaagsan leh subscribe saara share gareeya like ta waan idin salaamaya